maxaa luqadda Ingiriiska lagu dhahaa shil? Accident. Accident waa shil. Jumlad aan ku xirno. He had an accident. Asaga shil ayuu galay. He had an accident. Asaga shil ayuu galay. Maxaa luqadda Ingiriiska lagu dhahaa lama filaan ama kedis? Accident sidoo kale waxaa la yiraahdaa accident, lama filaan ama kedis. Jumlad aan ku xirno. I met Ahmed. Waxaan la kulmay Ahmed by accident, si lama filaan ah ama si kedis ah. I met Ahmed. Waxaan la kulmay Ahmed by accident, si lama filaan ah ama si kedis ah. Accident, lama filaan ama kedis ayaa la yiraahdaa. Midda saddexaadna waa shil. Luqadda Ingiriiska maxaa lagu dhahaa qaadid ama deeqid? Accommodate waa qaadid ama deeqid. Accommodate waa qaadid ama deeqid. Jumlad aan ku xirno. The house guriga can accommodate wuxuu deeqayaa two families laba qoys. The house guriga can accommodate wuxuu qaadayaa ama deeqayaa two families laba qoys. Accommodate waxaa la yiraahdaa qaadid ama deeqid. Luqadda Ingiriiska maxaa lagu dhahaa raacid ama la jirid? Accompany raacid ama la jirid ayaa la yiraahdaa. Accompany raacid ama la jirid ayaa la yiraahdaa. Jumlad aan ku xirno. My father aabahayga accompanied me wuxuu ii raacay to the station saldhigga. Accompany. My father aabahayga accompanied me wuxuu ii raacay ama wuxuu iila jiray to the station saldhigga.